shantan shay samee si ilkahaada ha ugu ilaaliso madowga iyo in yani midabkooda isbedelo kadibna ku xanuunaan oo ay qodmaan ama ay ka dareento saliigyo oo yani ay ku saliigyadaan iyo wax la mid ah badanaa bulshadeena waxay si aad ah ugu cawdaan ilka xanuunka ama goosa xanuunka iyo afbalolka balse wax laga hortagi karo haddii qofka si joogto ah uga taxadiro shantan shay aan ku sharxi doono hadduu alla idmo waxaan kula wadaagi doonaa qaladaad aad samayso mar walba kuwaas oo halis ku ah caafimaadka ilkahaada balse wacyigelinta bulshadeena oo aad u yar darteed badanaa bulshada kuma baraarugsan arrinkan marka si degan u dhigaysa cashirka si aad u fahanto qaladka halka uu ka yimaado si aad ugu hortagto ama u xaliso insha allahu lana wadaag muuqaalka asxaabtaada si kula faa'iidaystaan magacaygu waa Dr. Cabdirasaaq soo dhawaada mar kale qodobka wada aan ku bilaawno waa wax inta badan bulshada ay wada ogtahay balse aysan sameeynin sida hortiina ka arkaysaan qofka in yani maalintii oo cadaysto 2 jeer oo loola jeedo yani subaxii markuu soo toosan inuu cadaygu ku bilaabo habeenkii markuu jiifana oo soo yani waxba aysan u dhineen cunto ama cabitaan waxba aysan u dhineen markuu jiifana jiif ka hor inuu cadaysto labadaas waqti ayaa ugu fiican oo sida hortiina ka arkaysaan waxaan aad u sii wanaagsan qofka 2 daqiiqo wax la mid ah cadayga inuu wada oo cadayga inuu aad iskugu badiyo يعني caafimaad ahaan uma wanaagsana ilkaha oo qodobka loo dayaan ku sharxi doonaa balse si guud waxa wanaagsan 2 waqti qofkii inuu cadaysto subax markuu soo tooso iyo habeen markuu jiifanayo cadaygana waxa wanaagsan yani inuusan daqiiqadaha aad u badinin ama markuu cadaysanayo yani si awood ah oosan u isticmaalin cadayga oo si aad ilkaha ugu gilgilin labo qofka looma ogolo yani inuu overbrush waxa la sameeyo ama overbrushing waxa la sameeyo ah inuu cadayga يعني aad iskaga badiyo oo maalintii dhowr jeer cadayga uu ku celceliyo ama in ma arag daqiiqada fara badan yani oo cadayga yani ilkaha ku wada arrinkan sida cilmi baaris hortiin ay cadeynayaan waxa loo diiday waxay tahay dirbigan koro ee awoodda badan ee ilkaha dahaara inuu dhaawac soo gaarayo hadduu qofka si aad ah yani ugu celceliyo cadayga caafimaad ahaan waxa wanaagsan 2 mar sida qodobkooda aan ku soo sheegnay daqiiqadan waxa wanaagsan 2 daqiiqo iyo agaarkeeda macna 3 daqiiqo 4 daqiiqo macna daqiiqada fara badan oo aad u badan yani lama ogolo sababtan waxay tahay maadaama waxaan ay tahay wax yani intaan nooshahay baa sameynaysid oo yani ku celceliska zaidka waxay dhaawacaysaa layerkan ama dirbigan kor saarkaysaan ay dhaawacaysaa ka dirbigan hadduu dhaawac gaarana waa halis oo qofka yani jeermiskii wixii dhanba yani si fudud ay gudaha ugu gudbayaan taasna waxay keenaysaa ilkaha inay madoobaadaan qodmaan yani midabkoodana uu isbedelo marka waa arrin dhib badan marka sida dhaqaatiirta ay ku talinayaan ama cilmi baarisada waxa wanaagsan daqiiqado kooban iyo 2 waqti sidaas ay aad u wanaagsan oo dadka qaar xitaa waxay dareemaan saliigyo ilkaha ka dareemaan oo yani in ilkaha ay saliigyoonayaan sida qofka markuu liinta isticmaalo saliigyada ina fahmaysan ay arjeenayaan ilkaha sida oo ka noqda wax dhan markuu isticmaalo oo kale yani saliigyo ayuu ka dareemaa si la mid ah cadayga aad iskugu badiso ama si awood ah u isticmaasho arrinkaas oo isku arkaysaa saddex waxa wanaagsan sida hortiina ka arkaysaan qofka cadayga kadib in ilkaha kala dhaxdooda maadaama waxyaabo yar ay galayaan oo mararka qaar cadayga oosan soo bixin karin duntan oo kale inuu isticmaalo ayaa wanaagsan oo ku soo saaro si tartiib ah soo miraayad adeegsanaya ayaa wanaagsan yani inuu ku soo saaro يعني waxyaabaha yarku ilkaha kala dhaxgalay maalintii 1 mar ama 2 mar wax la mid ah aad muhiim u tahay oo cadayga mararka qaar meelaha qaar maadaama uusan gali karin oo yani meelo yar ay jiraan oo waxa cuntadii wixii ay gali karaan waxa wanaagsan in yani dunta wax la mid ah adeegsato si ay u soo saarto 4 inta badan ka fogow cabista ee cabitaanada macmacaan oo aashtada leh oo marka luuxda aad dareemayso aashta badan ay leeyihiin يعني cabitaanada aashtada leh yani kaliya ma ahan sokorta ku jirto wax dhibka keenayo balse waa aashtada ku jirto ilkaha qoday sida hortiina ka arkaysaa marka inta ka fogaan kartaa ma yareysan kartaa iska yaree insha Allah 4 shay adoo sameeyay oo hore u sameeyay haddii ilkaha ku madoobaadaan waxa wanaagsan dhakhtar u tagto oo iska gaarto hor intaysan gudaha u sii gudbin oo bixin aysan gaarin oo marka hore yani haddii ay fududahay buufin iyo wax la mid ah oo baahan in la buufiyo wax la mid ah marka haddii ilkaha ay ku fiican yihiin يعني waxa wanaagsan ma aragtay inaad sidan ugu dadaasho haddii xaaladaada meel adag ay tagtana dhakhtarka afka ilkaha ina la xiriirta ayaa wanaagsan soo u fiiriyo kadibna talaabada kugu habboon yani oo u qaado si arrinka loo xalliyo insha Allah
haddii kale qofku wuxuu dareemayaa xanuun fara badan inuu ilkihiisa sii qodmaan inay yacni isku sii gudbaan wixii oo dhan yacni ay aad u wada madoobaadaan. sidoo kale waxaan tala gaarsiinaynaa dadka yacni balwadda isticmaala sida sigaarka iyo jaadka wax la mid ah ilkaha aad ayay u dhaawacaan ayagana yacni haddii iska joojin kara inay joojiyaan ayaa fiican. marka inaa fahanteen ayaa rajaynaya shanta shay. asalaamu calaykum.